burco shaqaaqada Soomaaliland burcay ka bilaabantaa nabadeeduna burcay ka bilaabantaa waxaanu leenahay maanta colaad badan oo ka bilaabantay waa la soo arkay waxaan mooday in laga waaya arkay colaad dalka in looga waaya arkay anagu ma nihin siyaasiin waxaanu nahay dad madax dhaqameed ah waqtigaana inta yadaasa ka soo toostay magaalada waa duruuftan noo saamax weeday inaanu seexano marka hore waxaanu la hadlaynaa inta dhalinyarada ah ee iskuulada ku jirta ee nin waliba suunku qaban waayay ha jeclaysanina colaada walaalayaal aabbayaal adeerayaal ka daaya abaabulka nacaska maqlina dalka nabad baa lagu joogaa nabad baa ku nooshiin nabad baa wax ku dhigataan nabad baa ku naaxdeen colaad dalku wuu soo maray mid nacab iyo mid kaleba waa soo maray abaabulka intaa leegiya ama guurka intaa leegi siyaasadda iyo madaxweynenimada waxba ka tarimayo wuxuu buu ka kharibayaa idinkana nabad iyo nolosha idinka xumaynaysa waxaanu idin faraynaa inaad nabadgelyada gacanta ku haysaan waxa la qirayo meel walba laga qiray wax aan Afrika hore looga arag inay Soomaaliland ka bilowdeen doorasho aad u nabad ah oo aan Afrika meel lagaga sheekeeyay aanay jirin nabadda ayaynu wax walba ku gaadhaynaa nabadaynu heer kasta ku gaadhaynaa wax kasta oo adduunyadu ay hadeelkan yahay hore ugu martay halkaas nabaddu unbay ka bilaabmaysaa aynu nabadda xijisano nin siyaasihi dee haddii uu matalan ay kelmadi seegto waxaanu isfaraynaa inteena kale inaynu tahagaagsan qaadan ilaa aalaankanaynu joogno cid wax heshay iyo cid aan wax helin midna anagu ma ogin ka guulaystay iyo kaan guulaysan doonin laakiin waxaanu leenahay kii guulaystaaba dalkan madaxweyne buu ka noqonaya muddana waa haynaya muddadaa uu hayaana muddo xileedkiisaas way dhammaanaysa berritana raggaa imika wax waayey iyuunbaa isa soo taagaya oo iman doona wixii qof waliba uu dadka sii gashado iyuunbaanu hadhowto ku imanaya oo isla soo taagaya haddaad xumaan isla soo taagta gashato dadkana dee dadku kula xisaabtamaya oo arki doona wixii aad samaysay haddaad wanaag dee gashatana wanaaggaasaa lagugula xisaabtamaya maanta hawshiina ninkii wax waayow hawshaada maanta hagaajiso berritana wakhtigeeda isu soo taag odaygaa maanta haysta dalka 80 cod baa wax lagaga helaa dadkii buuqayay ee qaylinayay ee ugu adadkaa ka mid baanu ahayn anagu rag badan oo halkan jooga ka mid baa haddana sutiduu noo qabto wuxuu yidhi ma jiraan waxaas raggii ku soo dhacay waddadiisuunbaa la wada noqday markii dambe waa kaa maanta ku madaxweyne ah berritana ninka maanta wax waayaa tanoo kalunbuu helaysaa madaxweyne buu ku noqon doona markuu u sabro ee daysto ee dadkiisa dhowrto ee dalkiisa dhowrto isaguba wax ka noqon marka halkan waxaanu dadka iyaga dhammaantii gobol kasta uu joogo dadka reer Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa ee walaalaha ah ee ehelka ah ee aan odayaashoodii wax qaar ka mid nahay inay nabadgelyada ilaaliyaan ogaadaan nabadgelyadu inay tahay aasaaska nolosha iyo waxa aynu hore ugu maray iyo waxa kaliya umka ugu muhiimsan ee aynu nimcada ugu weyn ee aynu gacanta ku hayno marka islaamnimada laga yimaado waa nabadgelyada weey waxyaabaha cabashooyinka jira na waxaanu soo jeedinaynaa dii wixii cabasho ay yimaada in si fiican la isaga qanciyo oo wadooyinka ay leedahay ee la isku qanciyo ee sharciga iyo ciidaha u xil saaran iyo cidii loo arko inay markaa munaasab ku tahay inay ka qayb qaadataba